Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada meel walba adduunka joogtaan. Maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo sida muuqaalka teetalka ama tamleedka aan ka soo hadlo. Waxaa rabaa maanta inaan cagta u saaro kooxda la yiraahdo Habiqleyso Group ayaa maanta rabaa inaan ka hadlo. Horta marka hore inta aan bilaabin barnaamijka waxaa kaa codsanaya inaad barnaamijkan like saarto siina share gareyso si uu u faafo barnaamijkan qof walbana uu soo gaaro muuqaalkan oo ugu digtoonaado kooxda magaceeda la yiraahdo Habiqleyso Group. Okay, su-aasha meesha taala waxay tahay waa kuma kooxda Habiqleyso Group. Habiqleyso Group waa koox hackers ah oo ka horgasha internetka. Kooxdan Habiqleyso Group waxaa hogaamiyo Daahir Cabdulle Cali. Waxaa la sheegaa kooxda Habiqleyso Group in ay u qaybsamaan saddex qaybood oo waaweyn. Habiqleyso haddii aad maqashid waxaa kugu soo dhacayso inay u qaybsamto saddex qaybood. Qaybta koowaad ayaa yiri kooxda Habiqleyso in gabdhaha ay shukaamiyaan, gabdhaha caanka ah inay shukaamiyaan fanaaniinta iyo gabdhaha caanka YouTuberiska kadibna muuqaal fadeexa ay ka duwaan kadibna u handadaan YouTube-kooda saas u jabsadaan. Kooxda labaad ayaa ku soo hartay Habiqleyso Group ay ka tirsantahay xitaa kooxda dadka u hanjabaan oo dadka lacagaha kala dhacaan iyo kooxda hackerska oo internetka ka horgala. Saddexdaas ay u qaybsamaa kooxda magaceeda la yiraahdo Habiqleyso Group. Okay, muuqaalka oo xiiso leh Kabtan Ayuub oo markii ugu horeysay oo sheegay in kooxda Habiqleyso Group uu maxkamad la tiigsan doono waliba Daahir Cali uu maxkamad la tiigsan doono kadib markii Sharma Boy uu afka furtay uu yiri Habiqleyso Group ayaa ka dambeeyay aniga jabkii ugu dhacay. Kabtan Ayuub haddana xanaaqay isaga oo hadalkiisa caraka muuqato uu sheegay in kooxda Habiqleyso Group uu la tiigsan doono maxkamadda. Ilaahay ayaa og meesha ay wax ka bilaaban doonaan laakiin aniga haddaan ahay YouTuberiska Soomaaliyeed waa in aan kuu soo gudbinaa warbixinta saxda ee aan keeno. Waa mahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.